وسلامتنا أصحابتنا qaaliga waa markale barnaamijyadeennii Excelka mar kale iyo waxaan idin tusay haddii la yidhaahdo sida caadiga marka hore sidii caadigeedii ayaan barnaamijkeena isugu soo celinaynaa si taxana aan wadana haddii la yidhaahdo la soconaysaan marka koowaad marka labaad waxaan caawa idin tusay haddii la yidhaahdo taariikhdan caawa ku beegan 1 August haddii la yidhaahdo maxaa la yidhaahdaa haddii aan u baahannahay 30 maalmood 1 ilaa 30 annagoo aan qorayn halka haddaan rabno inaan hoos ilaa 30 markii aan ku qorro halkan ayaan imanaynaa markaan halkan imana kadib halkaas home ku qorantaan klik leenahay home markaan tagna kadib geeska dhanka midigta halkaa field ku qorantahay ayaan galaynaa waxaan doonaynaa inaan si isku xigxigto oo inoogu qorto taariikhda annaga oo aan qorayn mar kale ayaan inoogu qorto ayaan u baahannahay markaas waxaan sameynaynaa halkaas dhanka midigtaan tagaynaa field halkaa ku qorantaan imanaynaa field taas ayaan klik leenahay kadib halkaas ay series ku qorantahay klik leenahay marka koowaad iyaanan ilaawin halkan inaan taariikhda aan ku dul dhufano taariikhda saa ugu dul dhufanayna kadib halkaas home kaan imanayna kadib halkaa yar field ay ku qorantaan imanayna kadib series halkaas ay ku qoran tahay ayaanu ka dooranaa kadib markaan series sidaas uga doorano kadib row iyo column baa jira row haddaan idhaahno sidan ayuu noogu qorayaa midig ayuu wadayaa row column haddaan dhahno laakiin hoos ayuu noogu qoray hoos inuu noogu qoro maadaama u baahannahay bisha kowdeeda ilaa 30keega nooga tusaale haddaan bisha 8aad 30keega 2022 intaas oo dhan ii qor mar kaliya ayaan leenahay halkan markaan ku qorno taariikhda waqtiga halkaan ku joojinayno ee marka ugu dambeyso sanad baad ka dhigan karaysaa ilaa bisha 12aad kowdeedaad ka dhiganaysaa ama bisha 12aad 30keega aad ka dhigan karaysaa intaa doontaa ka dhigan karaysaa markaas kolamaad doorataan halka taariikhda intaad u baahan tahay ku qortid okay ayaad leedihiin okay markaa dhahdaan kadib sidan ayuu kuugu qoray iminka bishii 8 koodeedii bishii 8 labadeedii bishii 8 saddexdeedii bishii 8 afarteedii ilaa iyo oo laga gaadhayo bishii 8 30keegii maadaama ku buuxsanay bishii 8 30keedii ilaa halka laga gaadhayo ayuu maxaa la yidhaahdaa inoo soo shaqeynaya ka dhigan tahay haddaan u baahannahay inaan maalinka ay ku hagaagayaan magaciga aan u baahannahay saanan odhanaynaa equal to ayaan leenahay text ayaan leenahay text markaan dhahna kadib kan koowaad baan klik leenahay comma ayaan leenahay double quotation baan leenahay ddd waxay ka dhigan tahay maalinkii magaciga ii qor dayga magaciisa ii qor ayay ka dhigan tahay double quotation baan leenahay commaha ayaan soo xidhaynaa maxaa la commaha ma parenthesis kaan xidhaynaa kadib enter ayaan leenahay enter markaan dhahna kadib wuxuu noo qorayaa maalmaha magacoogii iyo noo qoraya maalmaha magacooga sugaan yar weynaysanay ilaa halka hoose wakaas halkaa monday buu noo qoray bisha koodeeda august koodeeda inay monday tahay buu noo sheegaya kadib halkaa geeskaasaan imanaynaa double click ayaan leenahay ama hoos baan u jiidaynaa labada midkaan jecel lahay formulihii saasuu noogu shaqeeyay bisha koodeedu waxay ku hagaagaysaa monday oo isniina maxaa la idhaahdaa labadeedu waxay ku hagaagaysaa tuesday oo talaada saas u soconaysaa ilaa maalinkaas calendarkii buu noo sameeyey bay ka dhigantahay si kale haddii loo dhigo calendar ayaan sameynay bil buuxa ayay ka dhigan tahay isagii maalmihiisii oo iswato yaanu sidaa ku sameynay ayay ka dhigan tahay marka qaabkan ayaa loo shaqeeyaa bil si aanad isku dhigin markaad tusaale aad dhiganaysa schedule iyo waxyaabo lamid ah waa inaad maxaa la jadwalka markaad samaysanaysid sidan baad iskaga qoran karaysaa maanta waxaad qabanaysid halkan aad ku qoranaysaa saasaad u wada dherarka markaas saas ayaa loo qortaa haddii la hadhaad barnaamijka waan wadaynaa sidaan hore idinku sheegay si taxanaan u wadaynaa wixii su-aalaad qabtaan waad isoo weydiin karaysaan aad iyo aad baan mahadsantihiin goor walba aad joogtaan khayr iyo barakan idin rajaama dhammaantiin